gabaygan waa gabay dheer anoo cadhaysan baan tiriyey waxaan tiriyey sanadka 1984 dhallinyarnimana hoostaygaga jirtay waxaanaan aada uga cadhooday niman aqoon-yahanaa oo haddii alla kuu roon yahay maadada aan dhaqanka iyo suugaanta aan cilmi sidaasa u lahayn laakiin aqoonaba kala leh ayaa inay digriyadooda iyo aqoontooda ku sheeqiyaan suugaanta soomaalida oo ciidan ay ku sheegaanba bahashubaynaya 200 sano suugaanta soomaalidu ayna jirin oo ereygan hooyaale la yidhaa aw 180 sano meelaha jiray wax saasay qoreen way ku hadleen way sheegeen arrintaa runtii way iga cadhaysiisay waayo suugaantaas wuxuu yidhi qar intuu jirayba quruuruxuu jiray ummadda soomaaliyeed intay jirtayba suugaanteedu way jirtay waxa weeyaan afka soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka kushitiga 40 af ee reer kushitiga ee maanta jiritaan kale ayuu ka mid yahay weliba waa ka keliya si officiala wax maamul u galay weeye ka afka labaad waa afka oromada isagoo afka ganacsiga laakiin amxaarka ka koowaada luqadda intaa soo jirtay oo haddii eebba xugmo ilaa 7,000 sano raadkeedii ay helayaan nimanka taariikhda yaqaana 5,000 sanona qoraal gashay meelaha qaarkood imika maanta laga helay qoraaladii la sameeyey ayaa la yidhi shalay bay wakhtigaasay jirto hooyaalaydu shalay ahay arrinkaa ayaan ka cadhooday marka waxaan gabay dheer baan tiriyo oo taariikhda soomaalida iyo suugaanteeda iyo waxaan ka hadlaya waa hagaag hooyaalayda iyo hoobaalayda waan ka hadlay labadaasaan ku bilaabay hooyaalay hooye inuu gabi dooniyo inaanu gabiyan wax lagu kala garto bay ahayd ninka gabya ama cid baa wax weydiisa ama degaanka xadan xanteeyo weydiiye su-aasha way soo jirtay ilaa weligeed hoobaalayna iyana la mid wayba ka horreysayba taad odhanaysayo hoobaalow marka dumarkeenu heesayaan ama ciyaarta la ciyaarayo sanad 360 sano bay kabcada yaalay hubal baa ka mid ahaa sanadka hubal soomaalida iyo nimanka Egypt yaala ayaa sanad u wada ahaa marka hobal baynu inagu nidhaa waxa weeyaan ilaa waqtigaasu ayuu jiray ayuu hobalkuna jiray waxa weeyaan waa sanabadii waqtigaa jaahiliyadda la caabudi jiray buu ka mid yahay haddii la ku roon yahay waxaan ku bilaabay nimanka gabya oo suugaantii ku danaystay maansaleyda ayaan canaan ku bilaabay way ku danaysteen suugaanta dad bay ugu adeegeen maskaxdoodii gaarka eebesiye iyo degaanka environmentkoodii kagamay hadale waxay hadba wiilka qooqan bay durbaanka ugu tumaan hadba madaxda jirta iyo maxayga jira yaa wax loo mariyaa haddii wax laga waayana waa la caayaa suugaantu dhalama daamay lahayn waxay ahayd wax dadka bini aadanka wax u tilmaamo gabayaagu bulshada wuxuu uga dhex dhashay inuu hago inuu kulbadhan u jeediyo ma yahayn gabayga markaa wuxuu ku bilaabmayaa hoobaalayey hadalku weeyaane hooyaa labaysoo badhkeeta hore weeyaan hawraarta maansada tixaaha u hordhac weeyaan gabaygay haloodii tahoo loo hormariyaa hal abuur su-aashii farayd hidintii weeyaan soo halawadee dhago u furo la huray weeyaan haasaawo abud soo taxnaa hidintii weeyaan halaan harkii raggii hore ayay ugu horraysaa hebel baa shalay soo macmalay hubanti ma ahayne maxaa raaga loo soo hanfari waa hortii tale hoobalayey hoobe hobalkii kabcada ooli jiray hadalku weeyaan hobal bay soomaalidu tidhaa sanamka haydaar waa lagu hirtaa gabay haddaad hoori leedahay
barakaa hoggaan looga dhigay maanso hidinteede wuxuu ka hadlayaa hoyaaleydii iyo hobaaleydii inay jiritaanka alhaylisahay oo markii ummaduhu aslaamta caabudayeen aan la caabudanay markay diini timidnaan la qaadanay waaye hadal lama ag joogsada haddaad oofi leedahay aamuskuu ku dhaamaa ninkaan xubin abbaarayn ohow lama yidhaa weedho aad oon ku raadiso waa waxaa afkii nuxur ka dilay iyo ujeeddaba ammaan iyo jacayl bay baryahan eeday maansaduye waxa waanadii lagu salliday iibso hadalkii waa awrkiraaliyo nin kale oofi taladii amiirada caleenta u dhigay ugu adeegaane ummaddii asaliga u lahayd loo ansixin waa intifaac wixii uu lahaa waa la oofsaday agloolkooda on gacanin bay eraya tuuraan waa igar salaax tolin khasboon waayihii iman inqilaabyadaasaa ku dhacay awran oo gabay haddii uu ilwaad beri lahaa wuu asaasaqay allahu raxmee gabi ma jiro waa afkala qaad waa da-ahaan lahaa waa dhallinyarnimadan weli iga sii hadhin oo allahu raxmee gabaydaa maaneen maanta ma idhaahdeen nin irraysay suugaantu oo eersadaan ahaye nin ilaaweytiisoo mid kale oofiyaan ahay nin abuurta maansada baryahan eegayaan ahay 4 sano waxbaa dheer intaana xadhiyuun gabay nin iftiinshay maahmaaha hoosoo arkaan ahay halxidhaala wuxuu aawanaa urursay sheekhowe waxaan ila xidhkeedii dhex galay baanistii oday abuurtiisu waa dhaafsan tahay saa u aragtaane asalkiisu waa naga fog yahay aniyo doolaal absamaa ku luuqayn jiriyo eheladiisiiye dirka oo awowgiya baa soo adeegsaday ajuuraan markuu xoogga lahaa waa iftiinsaday afka kushitigaan ka mid ahaa asal ahaantay ilmo nuux labaan wada gallaa ehelo diimeed da-idlaatay buu nooga hadhay amanuu hore alkumaadda nimankii lahaa waayay aragoode afkanow dadkaagii waxbaa uubatow riday ninkii aan ahow soo lahaa oromo sii dhaafiye aradaa sidaamuu ku furay awrtii berigiiye garaha agnaankii wakaa ayda sii galay awdiinle waa kii tegoo ma arki doontaan eeshiyo ruwaanday jiraan eheladiinniiye tuudsigaad u jeedaana waa aarankii lumay indiyana darbaa jira yaqaan waxay ahaayeen ubadkay girdaajaanna waa dhaqankii awraa afrikada baray wada galeen saa u erideen kuwa addinka yaaca u yaqaan waa adeerkaa ubadkaa tansaaniya jiraan uurka ku hayaaye ijabtina faraaciintii baan ehel ka baadhaa diimihii arladan soo taxnaa waan ku aaminay iska abeeradii baadilkaan kuu akhriyayaaye allihii wad waxay caabudeen oogtii loo shiday waxaa hilow la soo aayiraa urur ciyaareed hobal baa astaanta u ahaa aragti diimeed allihii nafsiga qaybin jiray waa is aragteen inaan waaq ku caabuday afkani waad ogsoon tahay ammuun buu u shiday geedihii uduga weynaaye wuxuu gabaygu soo ururiyaa waa ujeeddada waxaa loo adeegsaday angalo idin oon bixiye halkaa wuxuu ka hadlay in soomaalidu ay hijro ku jirtay saa maanta ay u qaxsa uun weligeed ba u qaxsay east africay ku qulqulasay haddii Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia waxa weeyaan way sii dhaafeen weliba kuwa yidhaahda adinka yaaca u yaqaan maanta waxay dagaalkay degan yihiin yacni waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waa ummadda waxay ahaayeen farakulul oo waxa weeye dhiiran marka iyaga is eriyayey haddaan saban kuma eriyin oon abaaro ku dhicin wuxuun gabaygii ka bilaabay markaa ujeeddadiisii shar iyo khayr muxuu soomaali u lahaa shar iyo khayr muxuu gabaygu lahaa halkaasaan gelayaa isagaa ilwaadiyo xarago oogta loo shidaye isagaa duqaydii arladu ku idmanaayeen isagaa abdiyo soo lahaa ayatiin wacan isagaa aleyliyo barqaba dhegi u oonayda isagaa ergooyinka nabdeed loo adeegsaday yacni waxtarkuu lahaa iyo wuxuu howlo soo qabtay iyo muxuu halaag lahaa isagaa colaad lays arjumay oolin jiray waa isagaa odhaha soo baxdiyo baanista u adag isagaa ammaan dhaxalgashiyo cayba eersaday
isagaa wacdiga loo ogaa minta way tolaaye hadday timaado isagaa sangihii aarsan jiray siiyey amarkii isagaa ololaha u lalaba guluf itaal roon isagaa uluuf iyo uluuf oodaha u rogay isagaa aseeyaha u xidhay ooryihii tegey isagaa naxliga loo egmaday oosha wada taal isagaa ibliiska u ahaa xuma alooskood isagaa utumihii fogaa uubahood qodaa isagay inkaaruu hogtaan aradadiisii isagay wax badan eeday oo aakhiro u riday isagaa dagaal aawadii loo idlaan jiray isagaa awood u leh codboqor shani ku aasmaan marka uu allaaqo qaafiyadda u urursho tooxdiisa 6 abyoon ayaa wada hargala beydka ubacdii haddii uu ilwaad bari lahaa wuu asaasaqaye allah u raxmee gabay ma jiro waa afkalaqaad wuxuu haddaba imankaa aan taabananaa aadamigii hore afkan inay lahaayeen oo soo barbaariyeen oo maanta haddii eebba xugmaa kaa yahay una shalay dhalan waa mudankii aadamiga hore soo aflixiyeen iridaha xuruufuhu maraan kala awaalkooda hooyaa albaabada taqaan uuba bixintoode ababshaha dhallaankay ahayd abadan xaawaad amintuu ka yeedhaa ku dhaco shibano ood saaran afka soo baxaa lagu gabiyaa awgay oo magane waxa aamusaha looga tegey waa itaal gabay ogobey mayeedhuhu tixdii waa agnaan xidhan labka oriyo waa shaqalladoo soo ilaaqtama sida makhluuq wuu abuuran yahay oo afkuna wuu abuuran yahay laydhka waad aragteen 2 xadhig oo kala magaca oo istallaala ayaa jira aadamiga waad aragteen xayawaanka waad aragteen dhirtuna waa caynkaa waa labiyo dhid sawjaynkaasu ilaahay afkuna waa sidaasoo shaqallada ayaa labka ah shibanuhuna waa dhidiga aamusa weeye waa kale waxa aamusaha looga tegay way taal gabay erey ma keenaya hadday shibanu isu tagaan labka oriyo waa shaqalladoo soo ilaaqtama bu'da laga alkumay dhuunta waa adhaxdii kuusnayd halkaasaa codku ka dhashaa voice boxka yaree halkaa ku yaala dhuunta bu'da laga alkumay dhuunta waa adhaxdii kuusnayde inta ay dhaqaaqdaa xukumaa aadanow magan iyada islaafka ugu wacan eydintuu yahay abuur weeye waa horow dhigay ee bacaliyowe afuu yahayba oblikuu ku yahay inuu ku aadaaye abtirsiinta gabay shaqalladaa loo irkanayaaye waa urur dhammaantood matala kii awrqaad rabaa ablaablayn dhexdooda ah waxbay kala amaahdaan isticmaalka waa xaraf 5 tuba idil ahaantood 9 uu dejiyid maa harsado 10na waa aade marna waa irdheeyaa wax dheer gebi ahaantoodi hadba aasha lagu daajiyuu ka amar qaataaye aqoonsadaay waxaa gabay xukumaa waa abuuraha halkaa markay banaso ayaa waxaan ku soo laabtay maxamed xaashi dhamac gaariye iyo cabdilaahi oo miisaanka maansada inkastoo isku qabsadeen lahaa hurintooda ina xaashi laatiiniguu nooga ood rogay indhuhu noo furo maanta waa awgii maansadee amintuu gaabtii halbeeg ku ansaxsiinayay 3 aragtiyood buu u qiray gabay anwaacdii haddii aye iyo wow galaan beydka adhaxdiisa oy lagu wadaag shaqal noqdaan waa halbeeg uray shibanuucii iyo aarsayoo shaqalla waa abuye adaqaalka xigay cabdilaahi baa soo alaal yimi markuu aana dheeraha halbeeg ku ansaxsiinayey 4 buu tibaaxaha u dhigay gabay irmaantii anna eemameeyo warbaa soo awaalbaxay ee horiskuu ka ood rogay 6 ka ogolaan waa amardiida qaran buu ka galay ula egtiisii 7 buu ku aadaa hadduu aad u taagsado 5na waa asteeyaa hadduu aayiraad gale ee 3daa ilmo adeera buu kala ilaaqdaa waxse udubdhaxaadkiisu yahay eydintuu waday inankii dadaalaba waxbaa looga aayaaye uma raamsi dilay horumar way kala ilowdaaye allow yaa sikraan iyo mirqaan siiba araggooda halkaasuu ku soo hakaday gabaygii ahaa allahu raxmo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu